السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada warbixin ku saabsan wadanka Iran. Iran waxay ku taalaa galbeedka Aasiya waxaana xuduud la leedahay 7 dal oo Muslim ah. sidoo kale waxaa ka waqooyi ka xiga badda Caspian Sea, koonfurna gacanka Persia iyo gacanka Oman. labada gacan waxaa kala qaybiya jasiiradda yar ee Hormuz oo ah mid aad u muhiim ah. wadanku wuxuu u qaybsamaa 31 gobol, caasimadiisu waa Tehran. Tehran ka soo magaalooyinka kale ee ugu waaweyn waa Mashhad oo bariga ku taal iyo Isfahan oo bartamaha ku taal. Airportyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah Tehran Mehrabad International Airport iyo Imam Khomeini International Airport. Iran sidoo kale waxay maamushaa 30 jasiiradood oo yaryar oo ku yaala gacanka Persia iyo mid ku taala Caspian Sea. luqadda koobaad ee Iran waa Persian ama Farisiga. 300 oo sano ka hor ilaa hadda dadka reer Iran waxay u dabaaldegaan Nayruuska ama sanadka cusub ee Iran oo badanaa ku beegma 21 Maarch. meelaha taariikhiga ee Iran waxaa ka mid ah Naqshad Jahan Square, Milad Tower, Gulistan Place, Persian Garden, qalcadii Armaaniyiinta, taalada xorriyadda Asadi, Bijon Tower. sidoo kale masaajido caan ah iyo goobo fara badan. waxa ugu badan ee uu soo saaray Iran waa shidaalka. Iran waa wadanka labaad ee ugu soo saarka badan shidaalka, kaliya Sacuudiga ayaa ka horeeya bariga dhexe. 60% shidaalka waxa uu ku jiraa gacanka Persia. shidaalka kaydka ay haystaana waa 125 bilyan oo foosto oo ah 10% kaydka shidaalka adduunka oo dhan. waxaana soo saaran 4 milyan oo foosto maalin kasta. wadanka Ciraaq marna lagu yeero Iiraanta Carabta, sidoo kalena ay ku nool yihiin Shiicada ugu badan. 65% dadka reer Ciraaq oo kala haysta laba madhabood oo Shiica ah. wixii ka dambeeyay dagaalkii dhexmaray 1980 waxaa ka dhex taagnaa xiriir u fiican. Afghanistan iyo Tajikistan waa Iran ilmaadaroodad, laakiin waxay ku kala duwan yihiin siyaasadda. Ruushka iyo Venezuela waa saaxiibada kaliya ee ka baxsan bariga dhexe ee Iran leedahay. Hugo Chavez wuxuu si joogto ah u booqan jiray Ahmadinejad iyadoo ay kala saxdeen heshiisyo badan. Ruushka iyo isaguna waa dalka kaliya ee dhanka militariga ka taageera, siyaasadaha u taageera. sidoo kale waa laba wadan oo xiriir aad u wanaagsan la leh waqooyiga Kuuriya. Turkiga waxay ka wada shaqeynayaan sidii loo gaarsiin lahaa shidaalka Iran wadamada reer Yurub. sidoo kale Syria waa wadanka ugu dhow wadamada Carabta. Iran waxa ku nool 80 milyan oo qof, waana wadanka labaad ee ugu dadka badan bariga dhexe. kaliya Masar ayaa ka dad badan, waana meesha ugu badan ee ay ku nool yihiin Shiicada adduunka oo dhan. 62% waa qowmiyadda Persianka, 16% waa qowmiyadda Azeris, 10% waa Kurdida. inta soo hadhayna waa qowmiyadda yaryar sida Carabta, Loris, Balochi, Turki iyo qaar kale. sidoo kale waxay isticmaalaan lacagta Iranian Rial. baabuurta waxay ka wadaan dhinaca midigta. xagga ciidamada waa wadanka afraad ee ugu awoodda badan Islaamka, kaliya Turkiga, Pakistan iyo Masar ayaa ka awood badan. xagga wadamada adduunkana waa wadanka 12aad inka militariga awoodda kala horeynta, waxaana lagu tuhunsan inuu haysto hubka wax baabiya ee nuclear-ka.